markii aan soo degsanayno softwareka asiga ahaan way fududahay stepskan ayaan maraynaa. marka sida caadiga ah qofka waxaa loogu talagalay in computerkiisu diyaarsan yahay. computerkaaga internetka ku xir fadlan. internetka markaad computerkaaga ku xirto waxaad kala soo degaysaa softwareka loo yaqaano ProShow ama ProShow iyo Premiere Pro. labada software ayaan maanta muuqaalkan kusoo deji doonaa. Filmora waxa uu wataa package loogu talagalay intro in lagu diyaariyo oo intro text wax loo yaqaan ayuu leeyahay. intro textiga qof kasta waa u isticmaali karaa walow kuwa qaar ay u baahan yihiin in lala soo dego. muuqaalka cashirada dambe ayaan ku daawan doonaa hadduu rabweyne idmo. xogta markaad internetka kala soo degto fadlan waxaan kaa codsanayaa xogta inaad dahaar ka qaado adigoo dahaarka ku qaadaya qaab extract maadaama xogta markii lala soo degayo ay tahay zip. markii aad la soo degto xogta ha fududaan si fudud run administrator ayaan taaban doonaa si aan computerkeena ugu soo dejinno softwareka. waa muhiim inaad martaa stepska aan marayo. haddii aad taqaan iyo haddaad meel kale kasoo barataba kama jawaabi doono wixii cilada ka yimaada. keliya wadada aan mare isku day inaad marto sababtoo ah softwareda ku shubitaankooda midba midka kale uu ka duwan yahay. midba midka kalena nidaam gooniha ayuu wataa. waana muhiim inaad marta wadada saxda ah ee loogu talagalay. saaxiibayaal waxaa socoto koorsadii oo aan shaaciyey maalmo ka hor. koorsadan waxaan shaaciyey bishan hadda lasoo dhaafayay. alxamdulilah ilaa iyo 2 fasal ayaa haatan ka qayb qaadanaya ama baranaya koorsadani. koorsada waxaa lagu baranaya waa muuqaal sameynta qaybaheeda kala duwan. ardadii ayaa wada xaadir ah xilligan la joogo. muuqaal ayaa loo duubayaa si iyagu ay u daawadaan cashirkan una qaataan. koorsada ayaa waxa ay noqonaysaa mid xasaasi ah waxayna u dhaxaysaa macalinka koorsada bixinaya iyo sidoo kale ardayga. halka ardayga asiga uu soo sameyn doono shaqooyinka iyo wixii la baray halka macalinkaasna sidoo kale uu soo bandhigi doono farsamooyinka koorsada lagu baranayo. waan filayaa adiga dad kale oo daawanaya inay ka qayb qaadanayaan ama ay ka mid yihiinba dadka baranaya koorsadan. haddii aadan ka mid ahayna waa rajeynayaa waqtiyada kale ee soo socda inaad ka mid noqon doonto. haddaba aan wada barano xirfad mustaqbalka wax noo yeeli doonta.